Shukaansi ama haasawe waa sheeko iyo isfahan ka dhex dhaca laba qofood oo lab iyo dhedig ah, kaasoo ugu badnaan ujeedkiisu yahay in la isguursado haddii labadaas qofood ay isku qancaan oo jacayl dhex maro. Waxaa jira shakhsiyaad aan haasawe dhex marin haddana nasiib u yeesha inay lamaane ku noqdaan safarka dheer ee nolosha, iyo sidoo kale lamaane uu jacayl ka dhexeeyey oo muddo isa soo shukaansanayay kuwaasoo ugu dambayn calafku kala kaxeeyey. Aan u soo daadegno dulucda qormadeennan oo ku saabsan sida lagu soo jiito ama lagu hanto hablaha quruxda badan. Waxaan soo qaadan doonaa 3 qodob oo aad ku soo jiidin karto gabadha quruxda badan. daacadnimadu waa mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee noloshu ku dhisan tahay, isla markaana door weyn ka qaata haasaawaha maxaa yeelay waxay xididdo qoto dheer u aastaa kalsoonida labada qof ka dhaxaysa. Sidaa awgeed, wiilow inaad daacad u noqoto qofta aad jeceshahay waa lama huraan, waana qodob weyn oo aad ku soo dabi karto ama ku soo jiidin karto gabadha aad jeceshahay. Dhoolla-caddayntu waxay astaan u tahay ama muujisaa farxadda ama xiisaha aad u haysid qofta aad la haasawaysid. Sidoo kale waa caddayn buuxda oo inantu ka dareemi karto inaad danaynayso isla markaana aad kalgacayl u hayso, taasoo keeni karta inay kuu soo dabacdo haddii ay kaa sii jeeday marka hore. Sheekada badan ee madadaalada ama faniga waqti badan oo aad siiso ama sheekadu aad kaga qosliso waxay gabadhu u fahantaa inaad xaggeeda u soo janjeedho, markaasoo laga yaabo inay isdhiibtaba haddaad mar walba ka farxisid. Marka hore waa inaad daraasad ku samayso inanta damcu ama kalgacaylku kuu hayo, sida inaad ogaatid waxyaabaha ay jeceshahay ama ka hesho iyo waxyaabaha ay neceb tahayba. Tusaale ahaan, haddii ay ka hesho nolosha casriga iyo afsuuqdiga oo ay la haysato caalamka cusub, ka waran haddii aad gabay iyo hoyaale ay gadhka u geliso saw inay kugu caajisto oo kaa cararto maaha ama noloshaadaba ka fogaato. Kolba waxa ay ka hesho waa inaad kula dadaashaa, hadhow markaad hantididu waa laga yaabaa inay wax badan oo ay jeceshahay dartaa uga tanaasusho. Hadiyaduna waa shay aad u qaali ah nolosha dhexdeeda, isla markaana marka aad qof hadiyad u geysid waxaa laga yaabaa isagoo xumaan kuu hayay inuu wanaag kuugu bedelo xumaantii, taasoo qalbigiisa ku beeraysa ama tusinaysa kalgacaylka iyo wanaagga aad u haysid.